nimankan gawaadhida wata indha yartaaba waxa weerar ku soo qaadaya niman tuuga meeshuna waa Nairobi Kenya. haddaba waxa iga yaabiye idinkana idinka yaabin doona ayaa wuxuu yahay nimankan indha yarta ah gaariga wata way ogaayeen inay meeshani tuug leedahay balse way u soo diyaar garoobeen waxayna ugu tala galeen inay muuqaal ka duubtaan kana xaraabeystaan. marka waxa dhacday in nimankii sidii ay filayeen ba ay weerar ku soo qaadaan iyaga oo kooxa ah ay og yihiin inay tuug yihiin oo way soo yaacayaan mar way dhaafayaan filinkoodii iyagu wax iska wataa shaqadoodii maalinlaha ahayd laakiin ma oga in maanta laga ruwaadsanayo oo qoso loo jeedo. waxa kale ee ka yaabin doona wuxuu yahay ninkani horta waxaan ay daba yaacayaan ay moodayaan mobile maaha mobile waa galkiisii way ugu tala galeen in haddii xataa laga qaato oo laga gafo inaan wax weyn laga qaadan oo gal mobile ay la tagaan laakiinse nimankan damiye waxa og yihiin ba iyagu waxay isleeyihiin Chaniskan ka faa'iideysta oo shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay meeshan imanayaan xataa saaxiibkaas uu qoslaya moogtay. haddaba sidii u jeedsanayaan waxaad moodaa inaanay cid la socon maba ogaba in la socdo oo la og yahay waxay soo gashanayaan koofiyado mask bay soo qaadanayaan hadday doonaan muraayado ku soo darsanayaan shaqada maalinlaha bay halkan u yimaadaan oo Chaniska ay ka faa'iideystaan black anta waxa ku ciyaaraya nimankan uma jeedaan inay u geeyaan booliska oo la socodsiiyaan inay nimanka tuugta ah ay magaranaysa tusaan fiidiyoga ay ka soo duubeen laakiin iyaga waxay ka tahay riwaayad qosol bay ka tahay waa kii koobaad ba hadda weer nagu soo qaadaya qosol bay u jeedaan moogtay Nairobi dadka reer Nairobi waliba isli way yaqaanaan in dadka caynkan oo kale ah ay aad u buuxaan magaalada marka horta hala socdaan hala foojignaado hana la iska ilaaliyo reer Nairobi waa darsin soo ma aragtaan aad bay u tira badan yihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.